munaasabad xilka lagu kala wareejinayo xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka ee Somaliland iyo xubnihii hore komishanka doorashooyinka ayaa ka dhacay xarunta komishanka doorashooyinka uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. munaasabadaasi xilka lagu kala wareejinayna waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha xarunta komishanka doorashooyinka ee Somaliland iyo sidoo kale xubnihii hore komishanka doorashooyinka iyo sidoo kale xubnaha cusub. horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii hore komishanka doorashooyinka qaranka ee Somaliland. waxaan leenahay soo dhawaada iyo duco baan isoo kiin raacinayna waxa kale oo ku darsataan hawsheeda iyo culeyskeeduna waa idin dambeeya imma kada aynu bilaabaynayno qosleynay ka bilaabi doontaa hawshan culeyskeedu waa hay'adaha filaya qaranka inay ugu culeys badan tahay sababta ay ugu culeys badan tahay waxay saameynteeda cid walba gaadha waxaan leenahay marka hore soo dhawaada commissioner waxa ay tahay hawl cusub oo hor leh oo ma garanaysaa ay baa idin bilaabatay xil weyn oo leedin eegayo caalamka iyo Somaliland iyo Soomaaliya oo dhan hawsheedu sidee u culus tahay iyo hawsha commissionka u taala iyo waxay qaban doonaan hawshana commissionadu waad iska garanaysaan oo waxa loo baahan yahay waa dhexdhexaadin inaad u xisbiyada u dhexdhexaad u ahaataan taana way idin ku ducaynaynaa in Ilaahay idin fududeeyo idin sahlo baanu Ilaahay ka baryeena shaqaalaha waa u mahadnaqaynaa muddadii aan wada shaqaynaynay marka aad bay ugu mahadsan yihiin sidii xilkasnimada ahayd ee mas'uuliyaddu ka muuqatay ay nolol shaqeeyeen waxaan rajaynayaa in commissionka cusubna ay insha Allah ta'ala sida ay si ka fiican ba ula sii shaqeyn doonaan waxa aad maanta u timaadeen waxa weeye commission awood leh aqoon leh waa aragnimo leh dad tababaran oo u bislaaday shaqadan baad u timaadeen intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ka warramay muddadii 5 sano ah iyo waxyaabaha uu qabsoomay. waxa maanta sharaf noo ah 5 sanadood kadib in komishankii doorashooyinka qaranka ee afraad uu xilkii ku wareejinayo komishankii shanaad ee qaranka waxaanu soo qabanay oo maanta idinku wareejinaynaa diiwaan gelin codbixiyaal oo casri ahayd oo hore Afrika iyo dunidaba ku cusbayd isla markaana Soomaaliland u soo jiiday sumcad waxaanu qabanay doorashadii 2017 taasoo ay kormeelayaashii caalamiga ahaa iyo kuwii maxalliga ahaa qireen inay ahayd doorasho aan hore loo arag oo wanaagsan ugu dambeyntii waxaanu tayeynay oo kor u qaadis ku sameynay hanaanka diiwaan gelinta oo idin diyaar ah kaanoo idin yaala wax deyna idinkaga tagayno balse waxaanu idinkaga tagaynaa intaas oo account oo lacag ku jirto marka good luck waanu idin ducaynaynaa waxaanu idinka tagaynaa haddaanu nahay komishankii afraad komishanka shanaad uga tagaynaa koow isku duubnay waxaan anagu shaqada cuslayd kaga soo baxnay teamwork isku duubniman kaga soo baxnay laba sirtoo la ilaaliyo inaad sirtiina ilaashataan oo aanay banaankeedii ka bixin saddex in hawshan way culus tahay hadiya habeen heegan u ahaataan oo aad ku shaqaysaan in ay shaqada aad priority ka siisaan oo shaqada ka horeyso shaqadiina gaarka ah. geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee loo doortay komishanka doorashooyinka ee Somaliland Cabdirashiid Maxamed Cali Riyaraac ayaa sheegay inuu dhexdhexaad ka noqonayo tartanka u dhaxeeya xisbiyada qaranka ee Somaliland. anigoo ka wakiila komishanka cusub waxaanu Ilaahay ka baryeynaa rajaynaynaa ballan qaadaynaa inta aanu bil aadan anagu ku nahay inaan tacabkiinu khasaarin waxay dee Soomaalidu mahmaha ama ducada ugu weyn waxa kamid ah Ilaahow aqoonnaha nagu cadaabin ee xanaha nooga tagin waa arrin weyn oo Soomaalidu markii hore ku dhaqmi jirtay macnaheedu waxa weeye dee wixii garasho aad garan weydo Ilaahay dee kugu cadaabi maayo dambi ma la garan weydo laakiin Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaanu nagaga tagin inaanu nagaga tagin oo aanan eexan waana idin kala eexan waana qaranka u kala eexan oo aanan xusbiyada iyo hawshaynu wadno u kala eexan
sidii aanu ku dhaaranay iyo sidii aan u soo maray inaanu dhexdhexaad iyo cadaalad hawsha ku wadno ay dhabnagu tahay oo aan awaamirta ilaahay fulino. ugu dambeyntiina xubnihii hore komishanka doorashooyinka ee Somaliland ayaa xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka ayaa xafiis iyo goob u tusay. Idris Maxamed Ahmed, Ariel TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.